بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan sharaxaad yar ka siiyo aafooyinka ugu culus quraanjada markii laga soo reebo aafooyinka ugu xay waa balanbaalista baashan baalweynta la yiraahdo ee hameenkii socoto ee shinida gasho waa aafada ugu weyn hadda shinidan aad arkaysaan waxa kicisay waa baashas ku socoto ukumahaas ugu xantaas samaysaa ay iskoran korayso kadibna qoloftaas yeelanaysa xuubkaas ay ku dadaysaa fareemadii malabkii dhashii wixii dhan ayay marka heer ay ka baxdo shinida meeshii ayay gaarsiinaysaa waa aafooyinka ugu waaweyn maxaa la yiraahdaa ay ku samayso shinida marka haddii uu qofka arko waa inuu taxadir sameeyo kana meesha ka qaado dabadeedna biyo kulul iyo uumi lagu sameeyo la dhaqa fareemada la dhalaaliyo xanjada marka hadda sanadiiqdan arkaysan dhan baashaas ayaa naga gashay oo ugu xantaas ku wada dhashay shinidina baabiisay ka kicisay waana xuubkaas weeye ay ku daboolayso way ka adag tahay waayo waxay leedahay baalweyntaasi boqorad oo sida u dhasho ugu xanta oo kale shinida ku dhasho kale ayay sameynaysaa dhasha markay ku dhasho xuubkaas ku wareejinaysaa dabadeedna diirtii markay iskaroon korto ay samayso maxaa la yiraahdaa qaybta dixriga iskaroon korka ay ka saarto ay ka baxdo ayay ka baxaysaa cushki kadibna waxay ku noqonaysaa aad bay ugu fidaysaa shinida dhan marka waa in markii la arko sanduuqaasi meesha laga qaado laga dhex bixiyo laga fogeeyo shinida kalayto dabadeedna waa in la mayraa biyo kulul oo digsi weyn lagu karkariyay lagu mayraa waxaan dhan si ay u dhimato maartay wixii dhan looga saaro meesha fareemadii wixii loo dhaqo ay u dhaqmaan